asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii diblomaasi sirdoonka dalka ingiriisku waxay sheegayaan in dowladda ruushku ay u adeegsatay howlgalkeeda dalka Ukraine diyaaradooda ugu khatarsan uguna casrisan ee S-700 dowladda ruushka ayaan iyadu marnaba ayna la wadaagin in diyaaradaasu ay ka howlgashay gudaha dalka Ukraine inagoo weliba og dowladda ruushku markeedii horeba inaanay ku dhawaaqin dagaal dhammaystiran ay ku qaadayso dalka Ukraine waxayna la wadaagtay inuu dagaalkaasu yahay howlgal ciidan oo keliya haatanse sirdoonka dalka ingiriisku waxay sheegayaan in diyaaradda S-700 ay bilaabeen inay haatan u adeegsadaan dalka tan ayaa noqon karta mid ka mid a dacaayadihii reer galbeedka inay ku sheegayaan dowladda ruushku ugu dambeyn inay ku khasbanaatay inay diyaaradooda khatarta u adeegsato Ukraine taasoo ah mid muujinaysa calaamado lagaga awood roonaaday dalka inkastaanay arrintaa caddeen wasaaradda gaashaandhigga dalka ruushku horeba waxa uu sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ruushku kaaraheeda casriga lagu magacaabo T-14 Armata iyo diyaaraddan Su-750 inaanay howlgalka qayb iyagu ka ahayn ayna yihiin qalab rasmi ah una dhigayo inay dagaalamaan xilliyada dowladda ruushku ay ku dhawaaqdo dagaal rasmi ah kusoo wada duuba daawadayaal innagu waxaynu indhaha ku haynaynaa Ukraine iyo hadba waxa ka soo cusboonaada